arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah gaar ahaan deegaamada bariga mudug koonfurta mudug oo kooxaha argagixisada ah ay dhaqdhaqaaqi ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aagga bacadweyne arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dawladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo runtii waxaan u mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta iyo wasiirada gaar ahaan wasiirka amniga oo runtii maantay offer gareeyay ama ballan qaaday in ciidamada Puntland ay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan ciidamada galmudug kula jira furimaha hore aaga hore dagaalka kooxaha argagixisada waayo dhibaatada argagixisadu dhinac kasta way saameynaysaa haday ka soo gudmaan deegaamadaasna waxay u gudbayaan meelo kale oo caloosha ah marka in inta ay maaragtay halka lagu horfadhiyo in si wada jira loola diriro ayaa maaragtay kamid ahaa qodobadii lagu soo qaaday shirka waxa runtii qaybta kale ahayd amniga argagixisada guud ahaan magaaladan Gaalkacyo in iyadana howlgaladii socday in la sii laba jibaaro iyadana in howlgal wada jira laga galo sida ciidamadu iska kaashanayeen xalay iyo operation wada jira ay ku wada jireen sidaas la mid ah waxa lagu soo qaaday in cidii argagixiso lagu tuhmo dhinacay rabto wax lagu qabtay hay'adaha sharciga loo daayo oo odayaasha daba ordaya iyo dadka kale oo daba socdaba aan loo maaragtay dhagraaricin qofka argagixiso loo aqoonsadana inuusan hayb gaar lahayn iyadana waa lagu soo qaaday waana lagu heshiiyay qodobka ugu dambeeya ee laga wada hadlay waxay amniga bulshada oo qabaa'ilka iyo beelaha deegaamada ay wada degan yihiin iyo dhacdooyin dhacay bilihii la soo dhaafay iyadana in si nabadgelyaha dib u heshiisiin lagu xalliyo qaarkoodna hadda ay socdeen maantay qaarna maalmaha soo socday ay furmi doonaan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee gobolka Mudug ku nool dhibaatooyinkaasi ay saameynta ku yeelatay inay isdajiyaan xalkoodiina labada maamulba ay diyaar u yihiin iyo labada bulshaba ay diyaar u yihiin in gobol la wada fariisto oo la xalliyo heshiisyadii hore loo galay beeluhu ay galeen inay sidooda yihiin wixii xadguduba heshiisyadaasi ku yimidna in wax laga qabanayo oo sida ugu dhaqsaha badan shaqooyin ay uga socdaan lana xallinayo wixii tabashooyin oo ka soo baxay heshiisyadii hore nabadda loo galay odayaasha dhaqanka iyo beelahana si gaar ah iyo maamuladaba aan leenahay hal la ilaaliyo dhacdo way dhici kartaa mararka qaarkood cid fidna wada ah dhacdo way geysan kartaa laakiin taas macnaheedu ma ahan wax heshiiskii weynaa burburinaya marka taasna waxaan si adkeynayaa in arrimahaasina ay kamid ahaayeen arrimihii maanta lagu gorfeeyay wixii aan gacan ka geysan karnaan aan diyaar u nahay hadda maalmahan inaan ka geysano aad iyo aad baa umahadsantihiin munaasabaduna waxay ahayd munaasabada uu ka hadlay wasiirka amniga galmudug Mr. Fiqi waxay ahayd kulamo joogto ahaa oo jiray oo looga hadli jiray amniga iyo iskaashiga labada dawladood ee Puntland iyo Galmudug shirkani kuwa uu daba joogay waxa ka soo qayb galay wasiirro kamid ah labada dhinac iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Mudug sidoo kale saraakiisha amniga haday tahay daraawiishta haday tahay booliska haday tahay nabad sugidda oo labada dhinac iyo sidoo kale xildhibaano saas oo kale iyagana Galmudug ka tirsan waxa kale oo ka soo qayb galay qaybo kamid ah garsoorka waxa lagu gorfeeyay oo aad looga wada hadlay qodobo dhowr ah oo uu hadda dul maray wasiir Fiqi waxa qodobada kamid ahaa uguna muhiimsanaa sidii si dhammaystiran la isaga kaashan lahaa la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada caalamiga ah ee duulaanka ku ah dadkan iyo dalkan qodobka waxa uu ahaa qodobkii ugu muhiimsanaa ee waqtiga badanna qaatay lagana wada hadlay meelna wax la isla dhigay qodobka la dagaalanka argagixisada waxaad ogtihiin argagixisadu ma laha limit iyo meel ay ku eg tahay waxa iyada target u ah qof kasta oo bini aadan ah xitaa islaamka iyo Soomaalida kaliya kuma eke cid kasta oo bini aadana
taarget bay u yihiin iyaga iyo naftooda iyo hantidoodaba Soomaali oo dhanna waa ay u siman yihiin waxaanu marka aan wada qaadanay labada maamul Puntland iyo Galmudug in meel looga soo wada jeedsado xogtooda la wadaago awoodaha wixii la isku biirin karo marba meesha culays uu ka jiro la iska garabsado waxaa hadeer taagan oo aad ka wada war haysaan deegaanada Bacadweyne in ay nimankii al-shabaabka ahaa ay yimaadeen dadkii halka deganaana ay dhibaato badan ku hayaan ciidamadoodina ay wali joogaan arintaa waxaanu isla go'aansanay in aanu si wada jir ah qorshe uga yeelano meelna uga soo wada jeedsano meel walba oo argagixisadu joogtana aanu wada jir uga wada hawlgallo Puntland iyo Galmudugna in la dagaalanka argagixisadu ay ku midaysnaado oo aan wax u kala soocan oo dhinaca ku saabsan inaysan jirin maadaama ay isku cadow yihiin lana rabo in ummadatan iyo bulshadatan cadawga ku soo duulay in laga qabto sidii sharafta lahayd wanaagga lahayd oo kalsamida lahayd oo aanu qorshihii iyo go'aamadii dhammaan aanu isula helnay oo isula qaadanay uguna ballanay inaanu ficil u bedelo iyo nataa'ij hadduu ilaahay idmo ay dadku ay ku farxaan waxaanu marka ballan qaadanaa ilaahay idankii inaanan u ogolaan doonin argagixisada inay fursadda helaan inay dadkeenna iyo deegaankeenna iyo dalkeennaba inay dhibaatadii la doonayaan inay ku fuliyaan inta karaanka iyagoo awoodayada ah waa shaqaynaynaa waxaanu ka rabnaa bulshaweynta Puntland iyo Galmudug in si wada jir ah arintaa loo garab istaago labada maamul lagala shaqeeyo hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay dhalinyarada rag iyo gabdhaba dhammaan in meel looga soo wada jeedsado oo aynan cadawga fursad ay dadkeena iyo dalkeena ku baabiyaan aynan siin labada dhinac Puntland iyo Galmudug inay ku midoobaan oo ay gacmaha isu qabsadaan colaadihii horena in la soo afjaro ay saa ku dhamaadaan oo aysan dib u soo noqon argagixisadana inay meel uga soo wada jeedsadaan oo dagaalka argagixisada ay ku midoobaan xogta iyo xoogga iyo xigmadana ay mideeyaan aad baa u mahadsantihiin